My name is Abhishek. When I was 14, magacayga waa Abhishek. Markii aan jiray 14 sano gurigayga ayaan ka cararay dagaalna dhexmaray qoyskayga awgii. Nin Sacuudiga u dhashay ayaa ii waday Kerilla, Islaamka ayuuna i baray. Islaamka ayaana galay 2 sano ka hor. haddana waa kana dadkan dhan hortiisa ayaan islaamkayga ka muujinayaa oon ka cadaynaya. ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. waa maxay su'aashaadu walaal? ma jeceshahay inaad su'aal weydiido Dr. Zakir? maya mudane. Dr. Zakir hadalkiis inaad tacliiqdo ninkan. waan ku soo dhawaynayaa walaalkayga sharafta badanow. waxaana kugu soo dhawaynayaa soo galitaanka diintii nabadda. waxaana aad u fiican in hadda awoodo inaad sheegto in ninkaasi Sacuudiyaanka ahi uusan kugu handadin. Maseef ayuu kugu handaday walaal? maya. ma awood? maya. ma wax hub ah? maya. maya aniga ayaa si kal iyo laab ah islaamka. ma sha Allah. qaybta istikhbaaraadku way iga xaqiijinaysaa warkaa. Ma sha Allah. I would like to give you a translation of the Quran. waxaana jeclahay inaan ku siiyo tarjumida Quraanka. halkan masraxa imaaw ee laga qudbeeyo. waxaan xasuustaa markii aan soo jeedinayay muxaadaradii ugu horeeyay 8 maalin ka hor. halka dadka dhexdooda waxaa joogtay gabar walaasheen oo islaamka gashay. in rumaysta ma awoodo inaan wajiga arko. kaliya waxaan awoodaa inaan arko wajiga qofka su'aasha weydiinaya oo bidixdayda ah. mikrofonkaas agtiisa. ma awoodo inaan wajigaaga arko. mana aanan awoodin inaan arko wajiga gabadhii maalintaas islaamka gashay. waa maalintii koobaad, maalintii sabtiga. istikhbaaraadkuna waa ii yimaadeen si ay ii weydiiyaan uga jawaabo darajadii haweeneydaas. waxaan u sheegay inaan garanayn xitaa wajigeeda. laga yaabo inaad adigu ka daawateen telefishinka. dadka meesha joogana aad ayay u badnaayeen. waxaa hubanti ah dadku inay wajigaaga ka daawanayaan telefishinka. aniguse ma arko wajigaaga. sidaa darteed hadda waad awoodaa dadka inaad ugu marqaati furto in qofna uusan awood ku adeegsanin. mana jiro qof ay suurtagal u tahay inuu awood adeegsado si uu kugu qasbo gelitaanka islaamka. haddaad adigu qalbigaaga iyo xubnahaaga ka jeclaatay dhulkeenan hadda Hindiya waa wadanka ugu yar wadamada caalamka ee uu dastuurkeedu dhigayo in muwaadin kasta oo Hindiya xaq u leeyahay in uu faafiyo kuna sugnaado diintiisa. waa wadan dimuqraadi ah. aniguse waan ku faanayaa wadankan kaasoo xaq inoo siinaya inaan diinteena faafino oo aan dacwada dadka ugu yeerno. in qof diin gelitaankeeda teerabta ha ahaatee lagu qasbo waa mamnuuc oo kaliya kama aha qaanuunka xukuumadda Hindiya oo kaliya, balse waxay mamnuuc ku tahay xitaa islaamka. mana awoodaan inaad qofna ku qasabtaan soo gelitaanka diinta islaamka. adinku risaalada ayaad gudanaysaan oo dadka gaarsiinaysaan. haddii uu diinta soo galo waa arrin wanaagsan, haddii uu soo galin wax dhib ah ma jiro. maxaa yeelay annaga ugu yaraan waxa awoodnaa inaan Ilaaha weyn hortiisa ka marqaati kacno maalinta qiyaama inaan diintiisa dadka ugu yeernay. waan ku mahad celinayaa walaalkayga soo gelitaankaaga diinta islaamka. aad ayaa u mahadsan tahay. walaalkeena Abhishek ee su'aasha weydiiyay qaybta dambe ee laga muxaadareeyay ayuu rabo inay ka tagto fursadii uu kula kulmi lahaa Dr. Zakir Naik Quraanka tarjumaadiisa uga qaadan lahaa. inuu muqaabaleeyo ayaan u ogolaanaynaa. Takbir.